Alex Fergusen ayaa dib ugu soo laabanaya heerka maamule kooxda Manchester United kulanka loogu dabaaldegayo. Sir Alex Fergusen ayaa dib ugu soo laabanaya heerka maamule ee kooxda Manchester United kulanka loogu dabaaldegayo sanad guurada 20aad ee ka soo wareegatay hanashada koobka Champions League oo ay 1999 ka qaadeen Bayern Munich. Garoonka Camp Nou 20 sano koor wuxuu martigeliyay mid ka mid ah habeenadii ugu mucjisada badneed kulamada kooxda United xilliga ay taariikhda ka dhigeen kubadda cagta markii Ole Solskjaer oo haatan naadiga leeliya uu Fergusen u horseeday koobkiisii ugu horeeyay ee kooxaha Yurub muddo 26 sano uu macallin u ahaa Red Devils taasoo xilliga qaaday 3 koob oo waaweyn. Sida iminka ay warinayso The Sun, maamulka United ayaa isku dayay inay qaban kulan loogu dabaaldegayo sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay guushii 1-2 ay ugu qaadeen koobka Champions League oo loogu balansan yahay in la dhiilo 16 May ee sanadkan. Manchester United iyo Bayern Munich ayaa labada kooxood barajeynaya inay dib u kulmaan ciyaaryahannadoodii hore sida ugu macquulka ah ee dheeshan xasuusta ah iyadoo macalinkan la filayo inuu leeliyo kooxdiisii hore ee Muja. Fergusen oo ku soo guuleystay 38 koob intii lagu guda jiray waqtigiisii maamule ee kooxda Old Trafford ayaa mar kale hogaamin doona kooxda uu guusha taariikhiga gaarsiiyay. Ole Solskjaer ayaa ahaa habeenkii Camp Nou geesigii kooxda maadaama uu dhaliyay waqti dambe goolka guusha xilliga United ay 2 gool la timid waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray. Waxaa sidoo kale la fahansan yahay inuu dheeshan garsoore ka noqon doono halyeega garsooraha reer Talyaani kaasoo la mid ahaa dhexdhexaadiyihii kulanka mucjisada ahaa ee mar kale lagu dheelayo Old Trafford bisha May.